maxaa kugu kalifay inaad noqoto fanaan marka laakiin dadka hadda jira waa dad iska dadaalaya aan control line oo macnaheedu computerka wax lagu habaynayo haddii tartama la yiraahdana waxaan u maleynayaa dad yar un baa ka soo bixi doona bismillaahi raxmaani raxiim halkaan naga daawanaysiin waa Dansan TV barnaamijka aan maanta idin soo gudbin doono waa barnaamij ku salaysan fanka iyo suugaanta waxaa TV-ga maanta marti ku ah laba abwaan laba fanaan oo ka kala yimaadeen qaaradda Yurub meelo kala duwan dhinacayga midigta waxaa fadhiya abwaan Cabdi Baadil Ibrahim ahna fanaan weyn oo Soomaaliyeed dhinacayga bidixdan waxaa fadhiya Bashiir Cali Xuseen oo ah abwaan fanaan mulaxan waxyaalo badan ay iskugu jiraan raggan marka inaguma hor dhacayo waxaan haddartaan ku soo dhaweynayaa mikrofoonka Cabdi Baadil Ibrahim ما شاء الله وما سنتين دلسن تي في وإذن ما علينا وأنا دونا بشير هذه sidoo kaleeto waa sidoo uu yiri walaalkay waa ku mahadsantihiin soo dhaweyntiina waan idinkaga mahad celinayna ku soo dhawaada TV-ga mar kaleeto waxaan leenahay ku soo dhawaada magaaladan aad wadanka Denmark Aarhus barnaamijkan wuxuu ku saleysan yahay taariikh nololeedkiini noloshiini hore iyo nolosha cusub waxaan maleynayaa in kuma hor cusba ama in kuma cusba in aad TV soo fariisatiin aad ka hadashiin barnaamijka noloshiina laakiin barnaamijkan wuxuu uga duwan yahay noloshii hore Soomaaliya iyo nolosha qurbaha aad kala kulanteen farqiga u dhaxeeya noo taataabitiin wax yar aad iyo aad baad mahadsantahay mar kaleeto su'aasha aadna weydiiseen waa su'aal muhiim ah oo u baahnayd in la isweydiiyo noloshii hore ama aan iraahday birisamaadkii iyo midda maanta jirta aad bay u kala duwan yihiin markaan ka hadlayo fanka iyo suugaanta annagu gaar ahaan aniga markaan iska hadlayo Bashiir Cali Xuseen ahaan waxaan fankan soo bilaabay 1970kii ayaan soo bilaabay xilligii ugu fiicnaa fanka Soomaaliya oo heerka dhexe lagu tilmaamo ayay ahayd waxaa jiri jiray barnaamij yiraahdo heesaha hirgalay oo aan markaa bilaabay 1970kii miisaan islama saari karo xilligaas dawlad baa jirtay wax oo dhan gacanta ku haysa maamuleysay iyada kala agaasimaysay maanta se fanka jiray waa mid ay dadku is abaabulaan mid ay dawladii lug ku leedahay ma aha waa shakhsi walba iskiis taas oo keenaysa inuu fanka kala duwanaansho badan fara badan soo dhex galo xagga anshaxa marka laga fiiriyo xagga tayada suugaanta marka laga fiiriyo waayo cid control karta ma jirto xilligii birismaadka waxa jiri jirtay wax la yiraahdo faafreebka oo heesaha controlkooda iyo anshaxooda iyo wax walba ilaalisa hadda se cid ilaalisa ma jirto wax walba waa furan yihiin marka waxa keenaya kala duwanaanshaha waxa keenaya dawlad iyo dawlad la'aan ayaa keenaysa insha Allah soo way agaagi doonta hadii dawlad waxa kala agaasinta la helo mahadsanid abwaan Cabdi Baadil adigana maxaa ka tiri arintaas waa la mid oo fikirka Bashiir Cali Xuseen waa la qabaa oo fankan oo iga horeeyay marka waan ku ixtiraamaa fankii hore horta anigu taariikhiyan aad baan macni u xiiseeyaa oo macnaha hilowna waa u qabaa anigu waxaan ahay dadka wadaniyada ku dheer anigi Bashiir waliba waxaan hadda qurbaha ku heshin inaan wadaniyada halka ka wadna guubaabino ummadda Soomaaliyeed jiilka soo koraya waliba isagu wuxuu ii dheereeyaa waa nin qoraa ah oo mataqaanaa aqoon-yahan iyo waxa u dheer mataqaanaa ninka waa nin laashin ah marka anigu fankii hore waxaan dadkii aan la qosli jiray dadkii aan la farxi jiray dadkii aan mataqaanaa iscaawin jiray farxad rayn iscaawin fankeeni hore wuxuu ahaa mid sida uu sheegayna tartankan waa ka soo qayb galay waxaan ka soo qayb galay 79 ayaan ka qayb galay marka saas baan waa beri ku noqdo ku biiray gobolada waa beri marka laakiin dadka hadda jira waa dad iska dadaalaya aan control line oo macnaheedu computerka wax lagu habaynayo haddii tartama la yiraahdana waxaan u maleynayaa dad yar un baa ka soo bixi doona marka waxaan ku gubaabin lahaa in ay sameeyaan tareerin ah in ay life u heesi karaan waxaan ku soo laabanayaa haddana Bashiir ayaa isagana su'aal ayaan hayaa macnaha dad badan waxaa jira fanaaniin badanana fanka qofka markuu soo galayo kolley duruuf ama dan ama qaab
ama ha isdhaho macnaha ii sheeg codkaaga qurux badan ama ha dhaho macnaha ii sheeg wadaadiba waxay ahaato waxaan rabaa Bashiir su'aashan weydiina waxay tahay maxaa kugu kalifay inaad noqoto fanaan su-aasha waa yara adag tahay qofka fan markuu soo galayo waa hiwaayad isaga ku beeran fanku ma aha albaab furan oo la soo galayo ma aha waxaa ka horeeyo hibada qofka ku jirta gudihiisa markuu fanku soo galayo isma oga qofkan waa hiwaayad isaga ku beeray waaye oo uu aad u jeclaanayo oo raadinayo inuu ka daba tago taasaa keenaysa rabitaankiisaa keenaysa ma aha albaab faneed oo furan oo layska soo galo meesha ma yaalo waa in marka hore uu qalbigaada ku jiro damiirkaaga uu saameeyey oo ay hibadaada uu yahay fanaan taasaa lagu soo galaa fanka cabdi baadil haddii aad haysid fikrad ka duwan adigana horta waa runoo fanka adoo fanaan unbaad sarkaysaa oo heesaya laakiin mid baa ka horeysa oo ah marka la yaryar yahay waa aragtay asxaab la yahay nin sheeko badanaa jira dadka qosliya mid iska heeseesaa jira gabar iska buraanburtaa jirta iska buraanburta waa aragtay dariiqada xitaa dad waxaa jira mataqaanaa shiribkoo kale siduu ku bilowda ciyaaraha hidaha dhaqanka dad waxaa jira shiribka dadka u jijiibiya ama dhaantada qof looga dambeeya ee dhaanteeya ee luqadda ku dhaanteeya dad kalena ay ku ciyaaraan qofkiiba mataqaanaa hadhuu isbedelayo oo wuxuu noqonayaa qof mataqaanaa caan ah marka anigu waxaan ahaa dadka ardayda dugsiyada ka heeseysaan ahaa marka dadkiibaa fanaankaa dhigaya marka waxay ku leeyihin mar kale noogu celi mar kale hees riwaayad dhig sidii unbaad mataqaanaa aad kusii jeclaanaysaa kadibna aad ku heesaysaa oo tartankana kaga qaybgalaysaa waxaan usoo gudbayaa dhinacayga bidixda Bashiir Cali Xuseen Bashiir markaan fanka ka soo gudubno waxaan rabaa nolol maalmeedkaaga macnaha wax qabadka aad samaysid ama aad ka shaqaysid ama aad samaysid noloshaada qof walba adduunkan wuxuu ku haystaa mustaqbal iyo nolosha kale oo lagu dabaro qofka bini'aadanka macnaha dhankan fanka waqti kaliya ayaad waqtiyadaada siisaa maxaa ugu badan xilliyadaada waqtiyadaha aad firaaqada leedahay aad samaysaa mahadsanid mar kale xilliyada aan firaaqada leeyahay waxa aan qabto waa curinta waxaan ka mid ahay bahda laashin waxaan ku howlanahay inaan qorno buugaag si aan bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogto wacyigelinteena ay u gaarto aniga Bashiir ahaan qoraalka goorro ma bilaabin dalkii Soomaaliya markii uu dal ahaa oo ay dawladii ka jirtay dawladii dhexe xidigta October ayaan ku qori jiray maqaalada markii halkan la yimid oo firaaqa dheeri aan u helayna waxaan bilaabay inaan buug u bedelo fikirkayga waxaan qoray 2 buug buugga ugu horeeyay oo aan qoray 5 sano ka hor waxaa la dhihi jiray bidhaamiye wuxuu ka hadlayaa afka Soomaaliga iyo xeerarkiisa maadaama aan hadda afkii qoraalkiisa loo eegaynin loo fiirinaynin xeer ahaan inaan dadka bal dareensiiyo afku inuu xeer leeyahay la raaco inuu leeyahay inaan dareensiiyo waxaa la yidhaahdaa bidhaamiya buuggaas buugga labaad oo sanadkii hore soo baxay isagana waxaa la yidhaahdaa darajo waa buug weyn waa buug siyaasadeed suugaamaysan darajo waxay ka timid darajo iyo xilyaa mudan ayay ka timid riwaayaddii la dhihi jiray waa buug siyaasadeed qofkii akhriyahay haddii uu siyaasad danaynayay uusan u baahanayn inuu jaamacad u galo waa buug aan leeyahay qof cid kasta oo siyaasadda danaynaysa indhaha ha mariso taariikhda Soomaaliya dhan ku jirto taariikhda Soomaaliya siyaasadda Soomaaliya dal iyo dibadba ay ku jirto waxaan rajaynayaa dadku inay ka faa'iideystaan waa mahadsantahay cabdi baadil su'aalaha waxa malaynaa ragga waa loo kala qaybinayaa hal dhinac laguma roonaanayo adigana sidoo kaleeto maasha Allah waa su'aal aad iyo aad muhiim u ah ani waqtigeyga waxaan geliyaa dhinaca wadaniyadda heesaha wadaniga ah inaan dadka gubaabiyo heeso wadani ku gubaabiyo in aan mataqaanaa group WhatsApp ah aan sameyno axyaa wadan la yiraahdo halkaas oo aan kaga tashano ubadka soo koraya sidee baan macnaha wadaniyadda ugu beeraa marka adi waxyaabaha wadaniyadda ayaa u badan insha Allah waan ku guuleysanayaa dhankaas waan ka soo gudbinaa dhanka fanka waxaan gelaynaa dhanka arrimaha bulshada iyo nolosha bini'aadanka waxyaalaha ku salaysan tahay dadka badanaa
macnaha adartan hawshan waxay naga ugu horeysa macnaha furfurasho iyo macnaha ii sheeg in macnaha dadka xoogaa dadka qaar dhalinyaro cusbaa jirta oo macnaha in bag uplin kugu sameey dhinaca social media oo hadda si xoogaysanaya marka waxaan rabaa inaan Bashiir aan weydiiyo Bashiir noloshaada wixii kugu yaabka badnaa kama hadlaa Yurub inta Soomaaliya joogtid kuma hadsanid mar kale Soomaaliya intaan joogo qurbaha la soo aadin wixii igu yaabka badnaa aad bay u farbadan yihiin 3 aad bay u farbadan yihiin waxaan soo qaadanayaa xilli waxaa jiray sharciga iyo kala dambeynta markii ay dumeen kadib ay noqotay jantarogan waxaa jirtay gabdhaha ugu quruxda badan magaalada ka mid ahayd oo dholbaar la dhihi jiray dholbaar macnaha iliga fodra ayaa ugu jiray afka oo dahab ka samaysan ayaa ugu jiray waa la isu tilmaami jiray gabar aad iyo aad la isugu tilmaamay ayay ahayd gabadhii xabad baa ku dhacday xabadaha la yiraahdo wiiftada iyadoo jidka maraysa ku dhacday gabadhii waa la aasay waxay isu sheegeen niman dadka akhlaaqda ka tagtay waxay isu sheegeen in loo baahan yahay iligi dahabka ahaa in loo baahan yahay isu sheegeen waxaa dhacday markii loo tashanayay oo la rabay in godkaas la aado oo la qodo oo gabadha meydkeeda la soo faago oo ay ilkaha loogala baxo dad ka mid ah ogaaday oo u sheegay reerkeedii u sheegay in caawa loo socdo in gabadha godka lagala soo baxo marka reerkeediina xabad bay soo qaateen gabadhaas badbaadadeeda darteed ayaa la isu xabadeeyay oo 5 qof ku dhimatay waxa gabadha afkeeda ku jiraan waa 2 ilig bas 5 qof baa ku dhimatay marka waa dhacdo wiligeed aniga qalbigayga aan ka go'inay ugu noqotay oo aad ila yaab badan mid kale noogu calaayadana hadaad xasuusatid oo mid labaad ama saddexaad mid kale waa jirtaa iyadana waxaa jiri jiray afgooye marka laga imaanayo waxaa ooli jirtay meel isbaara ooli jirtay su'aalo baabuurta lagu celiyo ayaa ooli jirtay marka subaxdii saaka waxaa la amray in baabuurta waaweyn oo dhan lacag zaa'ida laga qaado nimaa diiday ninkii waa la dilay darawalkii diiday waa la dilay marka halkaasoo kalaa la seexiyey baa marana korkaa laga saaray meydkiisii kuwa kale in baabuur kale ay yimaadeen lacagtii loo sheegay waxay yiraahdeen lacagta ma dhiibi karnay si wax ku wadaan taliyaha soo weydiiyay baa liiri meydka wax loo tilmaamay taliya ma jiro meesha okay meydka taliyaha xagga jiifa soo weydiiyay la dhahay ninka u baxay marada ka rogay halkaas xabad uga taalaa waa arkay waa soo noqday lacagtu iska dhiibay lacagtii loo weydiiyey hore ka dhiibay waxyaabaha taariikhda gale oo aadka u waaweynay ka mid tahay way badan tahay adiga xilligii burburku u dhacay kadib wixii dhacay way tiro badan yihiin marka waa soo koobaynaa insha Allah cabdi adigana sidoo kale to anigu horta Soomaaliya dagaaladii lama kulmin waxaan ka soo tagay iyadoo burburkii una dhacay aan ka soo tagay laakiin qurbaha waxaan la kulmay waxa kamid ahayd anoo la fadhiya dhalinyaro oo baar aan ka wada quraanayno iska fadhino badan qaarna ay shaah cabayaan oo magacii Cabdi Baadil ahaan ay qaar kale u soo kakaceen oo soo ag fariisteen oo iska sheekaysanayno qurbo qof wax uu weydiinayo inta badan bulshada ma dhaxgalo markaan dhaxgalan way ii wada yimaadaan احترام أي هرت شعب الصومالي دو كم سنين أي فنانين توهيان وأرك ميل بان تغنوين احترامان مركا أنا جو هالكي وش كينية أيام مت هالكا كسوق علي ويل مركو سوق علي هي قار عررين والحد عائرو محل عررتين بل سو عليه أو أدي وأيجا وده هلا أنا بويا أبو حسير والمحل عا كوي لف دي شو أفر بأهاين ninkaana la mid buu ahaa waxay ka soo wada galeen Liibiya Suudaan bay soo mareen meel saxara ayaa macnaheedu ninkan magafaleeyaa oo dadku seexiyaa marka isagu meel gooni u seexday ninkan markuu seexday adigu ninkii
waa laga tago waa lagu soo noqday marka lagu soo noqdo waxaa la arkay isagoo suuxsan oo jiifa marka inuu dhintaa la mooday waa la duugay ciidii baa lagu duugay marka la duugay ayaa laga tagay marka laga tagay meyd ahaan looga tagay ninka haddii laga tago dee waaba dhintay moogta ninkii malaha wuu soo kacay nasiib marka haddii xitaa lagaa tago dadku maaragtay waxay ku qiyaasaan ninkaas in dib dambeeto aan loo helayn baabuur kalaa marka la kulmay kiibaa soo qaado suudaan wuxuu keenay libiya iyo meelaha mataqaana adigu dadka lagu hayo sidii buu kusoo galay marka ninkan waxay moodaan reer aqraad way ka kala carareen macnaha nin meyd uga soo joogay haddana ninkii nool Yurub uga soo way u qaadan waayo waxaan bal ninka uu nool yahay kaale ma fiirin karnay leeyahay ninkan suuragal ma aha sababta waa duugnay ku leeyahay taas waa ugu yaab ninkan la sheekaysto waa run uu yiri waa duugan laakiin ilaahay baa badbaadiyo markii ay iga tageen buu waa soo kacay yiri ciidin waa iska jafay yaa ciid lagu duugay xitaa xabaar kadib waa inay neefta ku xiranta moqta ma aqaan wixii dhacay kulay ninka noola taas waa ugu yaab badneed mid kale waxaan arkay nin isagana saasoo kale gabar baa waxay qaniintay waxaa qaniinay maxaa la baasha la yiraahdo ma abeesa qaniintay gabadhii waa dhacdo halkaasi ku dhacdo afkiisii buu kaga soo saaray waa nuugay sunti waa la nuugaa afkiisii uu kaga soo saaray gabadhii sidii ku badbaaday bes marka gabadhii oo ilmo wadata ayaa iyadana aniga ninkii oo wada soconno yaa is aragnay markaasay dee ku soo booday oy dhunkatay ninkeeda yaa la socda mogta ninkaa marka wuxuu yidhi maxaa ninkaa saas ugu dhunkanaysaa gabadhiina farxad iyo raynrayn nafteeda badbaadiyo nafteeda way celin weyse yaa marka taasna waa ugu yaabka badnayd barnaamijka macnaha raggan macnaha ii sheeg fanaaniintan ama abwaanadan howlo kale ay ku jiraan waa dad macnaha wadankan u imaadeen shaqo marka Bashiir ayaa waxaan rabaa inaan ku soo gawaabado laba su'aalood dhinacii waxyaalihii la yaabka badnaa waan wareystay waxaan rabaa laba waxyaalood oo ka duwan waxyaalahaas oo laakiin u dhow waxaan rabaa Bashiir xilligii kuugu farxadda badnayd iyo xilligii kuugu naxdinta badnayd noloshaada su-aashaan waa adag tahay farxadda nolosheeday ka mid tahay mar walbo murugada waa la mid subax walba waxaan maqlaa waxbaa la dilay waxbaa dhintay waxbaa la weeraray waxbaa la qarxiyey murugada iigu badanay ka mid tahay inta ka soo hartayna waa farxadayda laakiin shakhsi ahaantaada ka wada simanaa laakiin personal ahaantaada personal ahaantayda waxaan ka hadlayba tan dadka kale waxay qabaan iyaga og aniga laakiin siday ugu taan kuu sheegayaa waa dhintay waa la dilay waa la qarxiyey maalin walba iska socota oo murugada iigu badanay ka mid tahay inta yare ee ka soo hartayna waa farxadayda marka maalin hebel ay igu farax badneed kuma dhihi karo masha Allah macnaha xilliyo kala duwan ay xaalado badan ayaa la soo kulantay abdi adigana sidoo kale anigu sidoo kale weeyo horta farxad waxay ugu farxad badneyd anigu markii aan farxad iraado markii la yiri mataqaanaa Soomaaliya heshiisa ka dhacay farxad iga weyn ma jirin farxadii kale laakiin ugu weyneed waxay ahayd hadda markii u dambeysay dagaaladii hadda markay socdeen doorashadii waxa ay socdeen ee wadanka uu ku sigtay in uu burbur ku soo noqdo mataqaanaa xamar isbaarooyinka la dhigtay ee ciidii iyo wixii la soo rogay ayaa igu naxdin badneyd dib baan u noqon doonaa laakiin waxaan arkay haddana in arrintii la xaliyey markaas haddana igu farxad badneyd labadaas anigu isu geeyey dagaalna ma dhicin dagaalna waa ku siganay dowladna waa naloo dhisay maasha Allah waxaan barnaamijku waa inii soo gagaabinaya sidii macnaha murtida aan uga qaadano haddana Bashiir ayaan waxaan u hayaa su'aal kaleeto Bashiir xilligii ama heestii kugu horeysay aad qaaday bal ereyada noogu dar maxaa heestaasna kugu dhaliyay hadaa adiga ereyada samaysatay hadii abwaan kale ku sameeyay hadii
macnaha arrimaha kolley adiga kama hordhacaya adiga bal noo tataabo faysal mahadsanid su-aashan iguma cusba ilaa iyo 100 jeer way soo martaan u malaynayaa dhammaan wariyaasha waxay ka siman yihiin fanka goormaa bilowday heesi kugu horreysayna maqashii TV walba tag radio walba tag su-aashan way jirtaa oo mid cusub hadda maaha laakiin waxaan kaa maqashin karaa cabdi bal kabanka igu caawi dhalinyaro ayaa la dhihi jiray heestii ugu horreysay dhalinyaroy dhammaanteen dhulka wuxuuna leeyahay dheemaniya luuliyo wax dhanbayga buuxee dhalinyaroy dhammaanteen dhulka wuxuuna leeyahay dheemaniya luuliyo wax dhanbayga buuxee inaguna ma dhuuxna ma dhurra dhaqalaha kormau dhignaa inaguna ma dhuuxna ma dhisna ma dhowra dhaqalaha kormau dhignaa waxaan dib ugu noqonay xilligii barisamaadka kolley wadankan hadda casumaad ku imaateen waxyaalaha laynu ka casumayna waxaa ka mid ah baraarujinta dhalinyarada iyo waxqabadka macnaha shacabka ummadda Soomaaliyeed si ay wacyigelin u siisiin waan ka soo gudbaya cabdi baadil adigana waqtigaagii su'aashaas inkastoo Bashiir uu dhaay 1000 jeer ayaa la weydiiyey marka waxa maskaxda qofka bini'aadanka ku rogorgaraysan marna isma bedelaan ku soo dhow mikrofoon anoo dhawahay waxa weeye anigu heesteedii igu horeysay dadkuna way yaqaanaan waana caan Bashiir wadani uu ahaa isagu wadani uu ku bilaabay hees uu qaado heeskaas ugu horeeyay aniguna heesaan qaado waxa ugu horeysay hees la yiraahdo amran uu sameeyay filfil alla yarxama arligaynu joogniyo afartiisa geesood waxaan kugu asteeyaa maanarag uur hooya may gelin ifkana kuma nara weli lama amaanin amraanay jacaylkaaga i abbaaray halistaa agtaydiyo beerkuu ag jooga oogadu ku faafo i idleeyay anige amranay ma og tahay aragaaga oo qoraa kumaan iibsaden adduunyada aragaaga oo qoraa kumaan iibsaden adduunyada kumaan iibsaden adduunyada waxaan u malaynayaa heestan inay tahay hees ayadana sidoo kale aan ka dhicin heestii horeeto Bashiir maxaa shacabka Soomaaliyeed anagoo barnaamij soo xireyno aad soo gudbin lahayd shacabka Soomaaliyeed wacyigelin fara badan waa loo gudbiyey wacyigelin kasta waxay u baahan tahay qaadasho in la qaato ayay u baahan tahay mahmaaha ayaa jirta dhehaysa inta aad hadli karto in ka badan dhageyso dadka ahlul cilmiga ah dadka ahlul aqliga ah waxa ay sheegayaan oo tilmaamaha ay bixinayaan kamid ah in la qaato oo la dhageysto ayay ku wanaagsan tahay haddii waana Soomaaliduna waxay dhihi jirtay
waayeelka waanadiisa haddii la yeelo waraabo weylama cunayna la yidhahdaa marka talada ha la qaato wixii wanaagsan oo dhan ha la qaato wixii xun oo dhanna ha layska tuuro midnimada iyo wadaniyaddana ha laysku wado taas ayaa guul keenaysa sidaan anigu filayo gaar ahaan caruurta ha lagu soo barbaariyo akhlaaqiyaadka diinta anshaxa iyo wadaniyadda intaba ha laysku bar waalidka ayaa muhiimadda inuu siiyo looga baahan yahay waayo wax walba waxay kasoo bilaabanayaan tarbiyadda ubadka guriga ka bilaabataa waxaad guriga ku bartuuna banaanka la tegayaa ilmahaaga marka waalidku ha foojignaado ilmihiisa ha barbaariyo wanaagga ha ku barbaariyo anshaxa ha ku barbaariyo waa mahadsantiin cabdi adigana xiritaankaagii barnaamijka waa la qabaa waxaan la qabaa bashiir intuu yiri in yaraan raacinaya insha allah intaasi oo ah soomaalinimada dadka lagu sugayo waa Soomaaliya dowladnimada dadka lagu sugayna waa shacabka waa in Soomaaliya isku duuban hadii la helo siyaasiyiintan isku duubmayaan marka waxaan rajaynayaa in Soomaaliya aad isgarataan oo Soomaalinimada u soo noqotaan kala qaybinta iska daysaan in aan leedan kala qaybinin inaad mid noqotaan aad baan u mahadsantihiin waxaan leeyahay Soomaaliya ha noolaato barnaamijkeenina halkaas ayaan kusoo gunanudeynaa waxaad ka daawanaysiin Dansan TV dhinaca kaamarada waxaa naga saaciday Cabdiraxmaan Matote sidaas iyo kulan dambe oo khayr waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh